waxaa noo yimi maantana soo booqday waftigii wasiiradaha uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay wasaaradda waxbarashada gobolka Sool baan joognaa waan u mahadcelinaynaa wasiirada sida quruxda badan iyo qaayaha ay noo soo booqdeen aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastana waxaan u sheegayaa inay wasiiradu diyaar u yihiin inay gobolka nabad ka dhacdo nabadaasna innagay dan inoo tahay haddaan nahay shacabka reer Laascaanood dan innaga inoogu jirtaa wasiiradu inta waxay habeen iyo maalin u soconayaan waa sidii gobolku amni u noqon lahaa dadkana loo fahansiin lahaa wal amnigiina ka shaqeeya bismillaahir rahmaanir rahiim waan soo dhaweynaynaa maanta waa maalin weyn waxaan soo dhaweynaynaa waftiga wasiirada ah ee heer qaran ee noo yimid wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin wasiirka warfaafinta Salmaan Cali Koore wasiirka jidadka Cabdirsaaq Ataash wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Sulub xildhibaan Casoowe dhammaan waan soo dhaweynaynaa madaxda qaranka noo timid waa wasaaradda cadaaladda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in ay nagu soo sameeyaan kormeerka ay ku sameynayeen dhammaan hay'adaha dawladda gobolada wasaaradaha gobolka Sool waxaan ku sugannahay Laascaanood bishii hore 9 marka laga soo bilaabo ilaa maanta hawlgallo culus ayaa Laascaanood ka socday oo isugu jira runtii amni sugis iyo kormeero ay sameynayeen guddiga heer wasiira maanta ilaa maalinta shirar joogto ah oo dadweynaha degan Laascaanood iyo bulshada lala qaadanayay dhammaantood amniga iyo horumarka iyo wada qabsiga iyo runtii la shaqaynta laamaha amniga iyo la shaqaynta dawladda laga hadlayay oo kulamadaas ay wadeen runtii guddiga heer qaran ee wasiirada ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u soo diray gobolkan runtii maanta ugu dambeysay waxaan booqasho ku gaadhnay wasaaradaha waxbarashada oo ah runtii halbowle deegaankeena ah uguna shaqaale badan iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda horena waa soo marnay tagaadud ka mid tahay ay ka mid tahay maaliyaddu wasaaradda fara badan oo aan hadda halka soo koobi karno soo marnay haddii qaybta booliska ay tahayna iyadoo soo marnay laamaha dhiman oo dhan waa soo mari doonaa insha Allah taala dhaqso ah in hawshaas soo socon hawsha nabadeynta meel fiican bay maraysaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa waftiga heer qaran ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaatay abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland